وحكالان دارن مقديو وحبيك قاعل كحسنا مقوي ومالنتي يركلو مضي مقعيك المذوب محمد حسن شيخ وشيك محمد حسن شيخ وشيك حنيا بن حقيقة جي وحبيك قاعل كحسنا مقوي ومالنتي يركلو مضي مقعيك المذوب سمر بحي مالنتي قلمذوب أي ما أنت تاهي ujeedada xafiladan ayaa ahayd mid lagu caleema saarayay gudoomiyaha qaaradda Yurub ee Galmudug mudane Xuseen Maxamed Axmed Qadiib ayaa ka dhacday magaalada London waxaana soo qaban qaabiyay jaaliyada reer London marti sharaftii ka soo qayb gashay madashan ayaa soo buux dhaafiyay goobta kuwaas oo isugu jiray haween rag fanaaniin iyo uqaal kale kuwaas oo ka kala yimid qaaradda Yurub ee gobolada dalka UK gudoomiye Xuseen Qadiib oo dhawaan lagu doortay dalka Turkiga kaas oo doorteen bulshada reer Galmudug oo arkay inuu ka soo bixi karo xilka loo igmaday ee ah gudoomiyaha qurba joogta Galmudug taas oo imaaday xiligeeda sida ay sheegeen mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay goobta xafladda waxaa lagu soo bandhigay suugaan gabayo shirib oo ka tarjumaya sida ummadda Soomaaliyeed ugu baahan tahay midnimo iyo gobolka Galmudug u noqdo gobol horumarsan dadkii goobta ka hadlay sharaxaad nooga bixiyay muhiimadda ay leedahay in Galmudug ay yeelato gudoomiyaha isku xirka qurba joogta ee reer Galmudug iyo wadamada dibadda sida UK hadaladoodana waxaa ka mid ahaa urur ama foundation la dhaho Yaxya Peace Foundation oo Cabdiqaadir Yaxya Allah u naxariistay loogu magac daray oo ka shaqeynayso in ay dadka wax barto ayagana waa joogan briefing si doonana dhowti marka mas'uuliyadaas ay hayaan ayaduna waxa la rabaa in lagu garab galo oo lagu kaalmeeyo ilmaha Soomaaliyeed inay wax bartaan dadka haday aqoon yeeshaan ay wax tiri karaan dadka aqoonta leh kuwa aqoonta lahayn mid ma Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka ha lagu kaalmeeyo ayagana insha Allah ta'ala waxa briefing si doona Ali Yaxya walaalkay gudoomiye Xuseen waxaan ku leenahay reer South London xilka lagu dhiibay ee lagu doortay Ilaahay ku fududeeyo caawa halkan ku calan saareyno walaalkay iga yar Xuseen Qadiib gudoomiyaha cusub ninkan asagoo tin badan la ayaa ogaay shaqo badan ayuu dadku qabtaa ama Alfa Trust taageero Yaxya Foundation taageero waa shaqo si aad noogu culus waxaan leenahay shaqada haysid mar walba oo garab taaganahay waa maasantiin jaaliyada UK meel baa joogtaan insha Allah wiilkan walaalkeeya Qadiib dadku way ku faraxsan yihiin mas'uul laga dhigay laakiin waa naxsanahay maxaa yeelay 11 qabiil oo Soomaalida ku ugu dhibka badnaa mas'uul looga dhigay I feel sorry for you sahib only hal dardaarana baadi aan ka dhashay reer Galmudugay hal laga qayb galo macnaha sheerka ka socda hobyo godan tilaabadana hore loo qaado dhaqaalaha iyo hantida jeebkiina ku jirtay wassalaamu calaykum mar carabka lagu dhuftay in uu jirto hay'ad loogu magac daray Allah u naxariisto mid kamid ah hay'adaha maxalliga halyeeyada nabadda ee Soomaalida Cabdiqaadir Yaxye Ilaahay naxariistii janno ha siiyo waxa hay'adda hoggaankeeda hayo oo isagana maamula waa Xuseen Qadiib oo noo ah hoggaamiyaha runtii sharaf bay noo tahay inuu hoggaanka ururkaasi nabadeed uu hayo ururkaasi wuxuu u taagan yahay nabadda iyo waxbarashada sida dadkii madaxda ahaa odayaashii ay hore u sheegeen waxaan idinka codsanaynaa inaad nala qaadaan in carruurta Soomaalida ay wax bartaan walow wiil adeer u hana oo qaaday aad u faraxsanahay sida sharafta leh quruxda badan reer UK aad uga soo qayb gasheen xafladan quruxda badan oo soo jeesan doona gudoomiyaha iyo wafdigiisa reer Holland waxaan rabaa inaan si gaar ugu mahad celiyo waxa jirta xafladan caaw dad aad iyo aad noogu soo sharaxay noo nuuriyay waa fanaaniinta waxaan rabaa inaan mahad celiyo waxaa dad la shaqeeyaan waxaan aaminsanahay Galmudug waxa ku dhacay isbedel aan caadi ahayn oo ka hormarsan gobolada kale iyo maamulada kale laakiin dhaqankii ficilka badnaa ee Soomaalida ay ku caanbaxday hadii ay shaqeyso Xuseen wanaagiisa ma muuqanayo waxaan soo jeedinayaa Xuseen in garbaha la qabto kor loo qaado ugu dambeyntii gudoomiyaha ayaa isagana ka hadlay waxyaabaha ummadda Soomaaliyeed u qaban doono
waxaan rabaa caawa inaan halkaan ugu mahadceliyo gudoomiyihii hore gudoomiye Faarax oo maalkiisa iyo waqtigiisa u horay inay qurba joogta Galmudug is hesho oo ah gudoomiyaha European Diaspora ee Puntland Cabdifataax Janagale waa nin walaala Soomaalinimada ku dheer tahay waa ninkii igu yiri Xuseen maanta Galmudug wadada ay kortay laakiin waxaan rabaa inaa Hirshabelle ila doonto madaxda Galmudug ugu sareyso waxay noo ballan qaadeen inay gacmo furan ku soo dhaweynayaan qurba joogta la shaqeynayaan wax alla waxay u baahan yihiin la garab taagan yihiin waxaan leeyahay walaalahay aad iyo aad u mahadsantihiin waqtigiina qaaliga ah waa maalintii